السلام عليكم. طبعا كنت لي قارة أفريقيا وجبت كير لهان قارة لبعض الدول كوين وأفريقيا وعيك كونتها أفريقيا كنت مصر وحدوده ضله قارة وحياة يستعملون صدّن لبيع 3 مليون أو كيلومتر اللي بتشباران تاسو كرديغان بقول كيبا لباتن دلوينها adduunka dalka koobaad ee ugu badka yar qaaradda Afrika waa Seychelles. Jasiiradda Seychelles waxay ka kooban tahay jasiirado 115 oo ku yaala badweynta Hindiya waxaana leedahay goobo dalxiisayaashu aad ugu xiran yihiin. Victoria magaalada madaxda dalkan yar magaaladu waxay ku taalaa meel 1500 kilomitir jirta bariga Afrika. dalkan ayaa leh dhul dhan 451 kilomitir oo laba jibaaran. waddanka labaad ee ugu yar qaaradda Afrika waa São Tomé iyo Príncipe waxay ku taalaa gacanka Guinea. São Tomé iyo Príncipe waxay ka kooban tahay laba jasiirado waaweyn. jasiiradaas waxay masaafo ahaan u jiraan qiyaastii 250 ilaa 250 kilomitir meel ka baxsan xeebta Guinea ee bartamaha qaaradda Afrika. dalkan wuxuu leeyahay dhul baaxadiisu gaarayso 964 kilomitir oo laba jibaaran. waddanka saddexaad ee dhulka yar qaaradda Afrika waa Mauritius. jasiiradda Mauritius waa jasiirad dalxiis oo weyn waxay ku taalaa badweynta Hindiya halkaas oo ay ku fadhido dhul gaaraya 2040 kilomitir oo isku weeran oo laba jibaaran. dhulka Mauritius waxa ku jira jasiiradaha Maskin iyo Zrtkos iyo jasiirado kale oo ka baxsan. Port Louis waa caasimadda dalka. waddanka afraad ee ugu dhulka yar qaaradda Afrika waa Comoros. Comoros waa dal madax bannaan oo Afrikaan ah oo ku yaala badweynta Hindiya. jasiiraddu waxay ku taalaa inta u dhaxaysa jasiiradda Afrika ee Madagascar iyo waddanka Mozambique. Comoros waxay leedahay dhul gaaraya 2235 kilomitir oo laba jibaaran. waxay leedahay 3 jasiirado waaweyn iyo jasiirado tiro badan oo yaryar. waddanka shanaad ee qaaradda Afrika ugu badka yar waa waddanka Cape Verde. waddanka Cape Verde waa jasiirado 10 ah. jasiiradani waxay ku yaalaan badweynta Atlantika oo masaafo ahaan gaaraysa u jira 570 kilomitir dhanka galbeed ee dalka Senegal galbeedka Afrika. badka jasiiraddan wuxuu gaarayaa 4030 kilomitir oo laba jibaaran taasoo ka dhigaysa dalka shanaad ee qaaradda Afrika ugu badka yar. waddanka lixaad ee qaaradda Afrika ugu badka yari waa dalka Gambia. Gambia waxa ku wareegsan Senegal marka laga tago dhinaca galbeed oo ay ka leedahay xeebeegiisa badweynta Atlantika. Gambia ku dhawaad 1,900,000 oo qof ayaa ku nool. badka dalka Gambia ayaa lagu qiyaasaa 10,380 kilomitir oo laba jibaaran waxaana ka mid tahay wadamada ugu saboolsan uguna yar qaaradda Afrika. waddanka toddobaad ee qaaradda Afrika ugu dhulka yari waa boqortooyada Switzerland. baaxadda dhulka Switzerland ku fadhiya ayaa lagu qiyaasaa 17,364 kilomitir oo laba jibaaran. dariska Switzerland waa Mozambique iyo South Africa. waa boqortooyada boqor la yiraahdo Mustawid Il. inta badan dadku waxay ku nool yihiin dakhli hoose dhexe oo ah ku dhawaad $10,000 qofkiiba. dhaqaalaha dalkan ayaa ku tiirsan wax soo saarka iyo adeegyada iyadoo beeraha iyo macdan qodista ay ka kooban yihiin 13% dhaqaalaha dalkani. waddanka sideedaad ee qaaradda Afrika ugu dhulka yari waa dhul Soomaaliyeed waana waddanka Djibouti. baaxadda waddanka Djibouti ku fadhiya lagu qiyaasaa 23,200 kilomitir oo laba jibaaran. waddankan wuxuu ku yaalaa geeska Afrika xagga gacanka cadmeed iyo badda cas iyadoo Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea ay daris yihiin. dadweynaha ayaa dhammaantood Islaam ah waxaana adeegsadaan 2 luuqadood rasmi ah luuqadda Soomaaliga iyo Faransiiska walow luuqadda Soomaaligu ay tahay luuqadda koowaad ee waddankani. waddanka sagaalaad ee qaaradda Afrika ugu dhulka yari waa dalka Rwanda. baaxadda dhulka Rwanda ku fadhiya ayaa lagu qiyaasaa 26,798 kilomitir oo laba jibaaran. waa waddan ku yaala bartamaha bari ee qaaradda Afrika. waddankan wuxuu ka mid yahay wadamada ugu koritaanka fiican qaaradda Afrika. si kastaba ha noqotee si xareegal ay uga soo kabatay bogga madow ee taariikhdooda. mid ka mid ah waaxaha ugu soo wax soo saarka badan ee dalkan waa waaxda dalxiiska maadaama loo arko waddan amni ah. inkastoo uu mugdi soo maray waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalxiiska lagu arkaa waa gorillas ku nool buuraha dhulkaasi. dalkan ayaa la sheegaa inuu ka dhacay genocide-kii ama xasuuqii ugu xumaa qaaradda Afrika. waddanka ugu dambeeya ama waddanka tobnaad ee qaaradda Afrika ugu dhulka yari waa dalka Burundi. baaxadda dhulka Burundi ku fadhiya ayaa lagu qiyaasaa 27,830 kilomitir oo laba jibaaran. waddankan wuxuu dhacaa bartamaha bari ee Afrika. Burundi waxa xuduud leh Rwanda.
Tansaaniya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Inta badan dadku waxay ka shaqeeyaan beeraha, in ka badan kala badh waxay ku nool yihiin wax ka hooseeya khadka faqriga. Kaliya 2% ka mid ah dadweynaha ayaa galaangal u leh bangiyada, mana jiraan wax isgaarsiin oo waddankan isticmaala. fadlan haddii video ka cajabay like saar, haddii aad nagu cusub tahayna subscribe, gambaleelka ogeysiiskana taabo si video kasta aanu soo gelin aad nala socotid. fadlan wixii fikir comment-ka nagu reeb. mahadsanidin.